السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa idin la hadlayo waa dhalinyarada reer Wardigley qaasatan reer Sinai iyo reer Bonder. laamigan maanta aad u jeedaan waa laamigi General Daoud ee shalay dawladda looga cabanayay in ay wax nooga qabato ama ay noo dhisto. nasiib wanaag dawladdii way noo soo jawaabtay, laamigina way noo dhistay. caqabadii laamigi jajabnaa waa ka baxnay, balse waxaan galnay caqabad kale oo hor leh. maanta waxaan halis ugu jirnaa caruurtii inay naga baaba'do, waalidka naga baaba'o. يعني ما أركتي باورتا حوارها كسعته أوي إيو دروالينتا دروال بردكا لاميجا اللي شدا انتهى لي لاميجي واللوردسي حوارا أيوه كسعته المهي عرورتو كلها ناي مركو حالنا دولة أجبت لاميجا إنه نو كنتو نو صور ديستو نجنا صو عاوسو أيان كعود سنينا ما أنت مده هنا مرحلة جرتو سما فريال هنقول يا لاميجا لا بس وحنا لنا أما أسكري جيفو ama calaamadihii baabuurta ay ka qawoojinayeen ee loogu talagalay bini'aadanka iyo askari jiifo. fadlan waxaan ka codsanaynaa dawladda inay intaas naga soo caawiso, waliba saddexda degmo ay wadadan General Daoud qusayso ama ay yani ma aragtay ka dhaxayso macnaha guddoomiyeyaashooda inay intaas noo fiiriyaan, nagana soo caawiyaan si laamiga caruurta ay ugu badbaado iskoolka aadayso ama dugsiga aadayso iyo waalidka laamiga soconayo si uu noogu badbaado. laamiga wax loo baahan yahay waaye, maantana bilicdiisa waa u jeedaan. timada dhibaato weyn ayaa timada oo ah in ay dadki mari waayaan ama ay wadadii goyn waayaan caruurtii iyo dadkii odayaasha ah ee u socday Masjidul Rahma sida caadiga ah waa taqaanaan. marka halka dhibaato oo kaliya ay haysto waxa ay tahay in wadadan naloo sameeyo asgari jiifo. maanta isbuucan ayaan wadada hadda u sidan yahay sida aragtaan saddex anug ay wadadan qabtaa oo dhibaato ay ka soo gaartay. marka waxaan ka codsanaynaa in wadada waa naloo dhisay, naloo dhameystiro, la sameeyo asgari jiifo naloo dhigo si ay u badbaadaan dadka waayeelada ah iyo caruurta iyo dumarka wadada goynaya. mahadsanyihiin dawladda bukumeelka federaalka, laakiin hal dhibaan qabnaa. laamigi khatar uu noqday, dhib uu noqday. haddadan darad wiilkayga baawur sigay ammaan ma lahan. waxaan doonaynaa in naloo dhameystiro dhibkii hoosha ay qabteen inay noo dhameystiraan. baahida aan qabno baahi weyn ma aha. waxaana laga iloobay askariga jiifo, waxaana nooga dhaawacmay soo far ilaa hadda 3 qof ayaa ku dhaawacday. odayaashii masaajidka aadayay waxay ku qaadanaysaa inay soo cross gareeyaan ay jidka ka leexdaan 10 daqiiqo, mana ka istaagayeen mootooyinku waqtiyin iyo baabuurta. saas darteed shacabkii xaafadda ayaa kacay, waxayna sameeyeen in ay u dhigaan dhagxaan iyo jidgoysyo. saas ayaa lagu badbaaday. 3 beri la soo dhaafay wax dhaawac ay wax accident ma jirin. wadadan inta aan la dhisin ka hor waxay ahayd goob boholo ah, isla markaana gaadiidka ay dhib fara badan ku qabeen. waxaana dib u dhis ku sameeyay maamulka gobolka Banaadir. Ismaaciil Aadan Bariisa, telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.